السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان إذن لنا إيميل كتوها جوبتان جمعو ونكسن داودياشا سيدة توس كانوا وداونايو بوغيني ميدو وقومية بنادرينات يوتمان روبيضا دومالوين ودن برنامج هو برنامج كاره أو أن جعلنا هنا كورة يسنو حقايها قول حزب قسانو أنا قدوميها dhalinyarada banaadiriga hore muumin ku dhawow muumin gudle mii maqlaysaa aad iyo aad ku maqlaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bacda assalaam waxaa u mahad celinaa walaalkayga iyo sidoo kale shabakadda midowda banaadiriga oo hadda iyo jeer ka shaqayso nidaamka iyo horumarka dhalinyarada banaadiriga soo dhawo walaal muumin sida aan ka warhayno maanta waxaa magaalada muqdisho ka dhacay kulan qada sharaf ah kulankaas qada sharafta waxaa biyaha kumeel iyo بسم الله الرحمن الرحيم inkastoo codkaaga si daciif ah ii soo gaarayo sidaa sheegtay waay walaal waxaa maanta aan qabsanay annagoo ah midowga banaadiriga kulan oo aan ku casuunay ku dhowaad 45 qofood ilaa 50 qofood kulankaas ay ka soo qayb galeen odayaasha waxgaradka banaadiriga aqoonyahanada iyo waxaa ka soo qayb galay culamaa u diinka kulankaas oo ahaa mid furmay bacda salaada jumca kadib ayaa waxaa lagu falanqeeyay arrimo dhowr ah arrimahan insha Allah waa kula wadaagi doonaa waxaa ka soo qayb galay shirkaas ku dhawaad 50 oday ka soo qayb galay shirka ulajeedadiisii iyo qodobadii looga hadlay bismillaah waxay ahayd walaal waa sax shirka wuxuu ahaa mid oo la isku baranayaan qowmiyadaha banaadiriga ama aan dhahno beelaha banaadiriga oo ay markii ugu horeysay aan dhihi karno kadib 30 sano in ay wada isor fariistaan si cadaaladna ay isku fariistaan dhammaan odayada matala beelaha banaadiriga maxay ahayd odayaal kale way maqnaayeen oo hal mar ma la wada balami karin laakiin kulankan wuxuu ahaa gogol dhac wuxuu ahaa oo hordhac u ahaa in ay kulmaan beelaha banaadiriga si isbarasho ay u kulmaan marka barnaamijkiini qorshayaashiini mustaqbalku waa maxay walaal sideedaba banaadiriga waxay islaayeen muddo 30 sano ah in ay meel wada fariistaan banaadiriga weli aayahooda ma aysan ka hadlin inkastoo ay jiri jirtay in la wada fariisto laakiin looma dhammaa jirin hadda marka waxa uu yahay hadafkeena koowaad wuxuu yahay targetkeena in beelaha banaadiriga aan wada aroorino kulankan dad badan ay isweydiinayaan oo leh dad badan kulanka ka maqan waa sax dad badan kulanka ka maqan laakiin ujeedada aan u sameynaa wuxuu ahaa in aan sameyn karno horta kulan aan sameyn karno marka mustaqbalka dhow waxaan rajaynaynaa ahdaafta mise targetka aan tiigsanayna ayaa wuxuu noqon doonaa in aan isku keenno beelaha banaadiriga oo idil kanna wuxuu ahaa hordhac ka mid ee kulamadaas ayuu ahaa waxyaabaha marka noo qorshaysana waxay tahay in beelaha banaadiriga horta kow aan kulmino in la iscafiyo in la midoobo kadib ayaa insha Allah waxaan leenahay maxay ahayd hoolal fara badan oo aan is leenahay waa gaari kartaan mar haddii aan midoowno horta aan is aragno ayuu hadaf u ahaa kulankaas odayaasha ka soo qayb galeen igu soo celi codka aad igu daciif ah odayaasha ka soo qayb galeen kulan sharafka ka dhacay restaurant al-hindi tira ahaan tiradoodii ma noo sheegi kartaa walaal maxay ahayd kulanka waxaan ku casuunay ilaa 50 qofood hadda waxa ay hortaala warqadii maanta aan ka soo qornay odayaasha oo idil waxay iskugu jireen malaaqiya iyo waxay iskugu jireen waxgarad iyo wakiilo ay iskugu jireen oo markaa ka socdo beelaha markaas aan ku casuunay madashaas hadda waxaa meesha ii qoran ku dhawaad adiga 35 qofood ayaa ii qoran oo markaas matalayay beelaha banaadiriga oo idil marka wararka hadda la isla dhaxmaraayo baraha bulshada gudyada ay banaadirigu ku sheekaystaan waxaa la leeyahay qaar odayaasha ka maanta
maxay midii qorshaysan yahay qorshe ma ku jiraa dadka maqan in aad ka warjelisaan oo aad ka soo qaybgelisaan kulamadiinni qorsho والله هذا ما ستا ولكن زين وهران كوجو شيء قرشها كواد أي وحوي هي إن أن سمينا ابنها بنادري قدرنا إن أرورنا ديوان جلنا قضياش معناه إذا ما هدي ما أنت إيسن كل من أن وضع كل من معناه إذا ما إن أن كمارن قضياش وحن أبا هنا هاي فكرة قضياش إيو أود لا يرضى مركب أنت وحن سمينا وحي جوجل هراء هاد إن لكل ميو بنادري أو إدل مركب وحجر دونا أو نجسوا آدم شرر أن قرشنا يقدميها عدة oo ah in la wada kulmiyo beelaha banaadiriga hal kulan oo weyn loo wada sameeyo marka macnaha dadka ay hadda fasiranayaan waxay u jeedaan kaliya sawirada aan soo qaadnay waxa daaha sii jiro oo yani ka sii qarsoon dadka in dad fara badan ay nala soo xiriireen ee nooc dardartay maanta ay ma waayeen laakiin insha Allah process-ka soo socdo ee meesha ka soo wada muuqan doonaan ee kullina aan wada kulmi doonaa waa hadafkeena koowaad in aan mideeno beelaha banaadiriga waxaad tahay qof dhalinyaro waxaad haysaa xilka xogayaha guud barnaamijkaadii adiga maadaama aad tahay xogayaha guud arrimaha dhalinyarada banaadiriga igu soo celi walaal adoo raale zayn codkaas fiican uma maqlo baddaan joogaa jawigana waa jawi roobeed maasha allah waxaad tahay qof dhalinyaro ah si fiican waxaana ku magacaawan tahay xogayaha guud xisbiga sanu iyo si fiican qorshaysan arrimaha dhalinyarada والله horta waxa ii qorshaysan midii u horeyso inaan horta kulmino maxay beelaha banaadiriga oo idil waa hadafka koowaad hadafka labaad waa inaan ka shaqeynaa wadajirkeena iyo midnimada beelaha banaadiriga inaan ka shaqeyno midowga banaadiriga maxay ahayd ururka saanoona insha Allah oo gadaalan ka sheegi doonaa qorshooyinkiisa iyo balaanka u degsan sanadkan 6 bil soo socota dib aan u sheegi doonaa laakiin hadafka u horeeya hadda maxaa waa inaan kulmino dhalinyarada sida ogtahay dhalinyarada waxa aad u dishay daraagiisa aad u dishay iyo waxbarasho la'aan waxyaabaha ugu horeeyo oo hadda aan tilmaami karo aan isleenahay waa ka shaqeyn doontaa marka xilka la wareegno si toos ula wareegno biidnillah waxa u koow inaan kulmino dhalinyarada banaadiriga laba inaan ka shaqeyno maxay ahayd waxbarashada iyo horumarka inay la tartamaan beelaha kale ee Soomaaliyeed oo nugul nool maxay ahayd dalka Soomaaliya sidoo kale waxyaabaha kale aan isleenahay waa horumarin doontiin waxa kamid ah in aan la dagaalanno daraagiska iyo in aan la dagaalanno jahliga u horeeyo waxyaabaha arab aan isleenahay qorshaha ku darsada waxaa aan la soconaa in guddigaas ilaa iyo hadda tiradoodii iyo dadka ay yihiin waxaan u fahmay guddiyada inaa i wareysatay guddiyada waan sameynay ilaa waxaan sameynay dhowr guddiyada marka waxaan u soo bandhigi wayna ayaa waxay tahay dadkeena banaadiriga waa dad xoogaa iska uqdad badan oo adana oo tafraaruq aad u kala tagay marka waxaan horta sameynay guddiyada dib aan u dhiganay oo guddiyada waa magacaaban yihiin laakiin waxaan rabnaa horta inaan isku wada keenno dadka naga maqan inaan ka faa'iideysano experience-gooda iyo khibradooda markaan isku wada keenno hadda iyo mar labaad inaan sameyno jadwal aad u wanaagsan oo markaas qof walba mise beel walba oo beelaha banaadiriga kamid ah ay ka muuqanayso anagoo isticmaalayno khibrad insha Allah dhanka dumarka haweenka ma ku jiraan guddigiini haweenka xubno oo haween ma ku jiraan والله هذا ما سنت ولكن زين حبناها جنتل بالانس إذا في كده وحيابها أنت فكرني كمتها أو آد أن ودنيني إن أو بالشدة أنا يكوض موقته لبض جنتل بيكوض مقدان هوين كوي كجران أرمها أو مارتي أرمها أو بالشدة وكلا وحام آد ودنيننا إن شاء الله وإني كم مقدان هوين أرمها هوين كان إن شاء الله وحاول دي بدنا قبلنا ودي بدنا بنادرية هاي ذاتي بنادرية وحليهن قبلنا آد وحاول برتي أو أن أرجني وحقبت كويدا مركز كاسرنا وكفى إدي سدنا jadwalka ee guddiyadana insha Allah sida u dhaqsiya badan ayaan u soo dhigi doonaa gurubyada biidinillah dhinaca kale haddaan u baxno marweyne yani kaliya kuma koobna iyo todobada gobolka banaadir iyo gobolada dalka si fiican in dhammaan bulshada saaran inaad xiriir la samaysaan oo aad ka warjeedisaan oo aad mataqaanaa ka warhaysaal
شيئان يقولون كوتين si fiican aad u maasanta walaalkay Zain meesha waxa aan ka bilownay manbaca mise meesha markaas oo ka unkumnay waa Xamarweyne iyo sida sheegtay Sheengani iyo Cabdicasiis laakiin ujeedada hadda aan sameynay ma aha ma wada dhamaystiri karna baahida marka hadda jirto annagana waxaan nahay gudiyo cusub experience badan oo hadda aan leeyno waa haysanaa ma jirto laakiin annaga waxaan u aruurinaynaa beelaha banaadiriga iyo aan u aruurinaynaa dadkii hore ayaa hadafkeedu wuxuu yahay inaan gaarno ilaa ay gobolada inaan gaarno degmooyinka oo idil dadka ku nool oo markaa banaadiriga ah oo xuquuqdooda aan u raadino insha Allah saas waxaan rajaynayna biidnillah aad iyo aad ayaad u mahadsantahay fursadda aad na siisay inaan ka wareysano kulankii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho sidoo kale walaalkayga Zain adiga iyo shabakada midowga banaadiriga aad ay u mahadsantihiin sidoo kale aad aan idinkaga mahadcelinaa jaaniskan ay siiseen inaan codkayga ka dhiibto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kaasi wuxuu ahaa muumin guudle oo aanu ka wareysanay markii Facebook isagoo magaalada Muqdisho tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh